بسم الله الرحمن الرحيم دمان مسؤوليين هالكان فرديدا dhalinyarada ka qalin jabinaysa xirfadaha guusha nolosha waalidiinta dhalinyarada kale oo Soomaaliyeed oo halkan joogta assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu sanad qiimo badan kadib runtii maanta aad iyo aad ayaan u faraxsanahay maxaa yeelay waxa la joogaa xafladii qalin jabinta dufcada koobaad ee xirfadaha guusha nolosha runtii maanta dhalinyarada ka qalin jabinaysa xirfadaha guusha nolosha waxay naga mudan yihiin in la dhiirigeliyo loo hambaliyeeyo la yiraahdo aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin maxaa yeelay 4 bilood oo xiriira ayay waxay soo dhiganayeen xirfadaha guusha nolosha oo ah barnaamij aad u heer sareeyo oo sare loogu qaadayo hibooyinka Ilaahay uu ku abuuray dhalinyarada Soomaaliyeed 4 bilood oo xiriir ah ayay sare u qaadayeen hibooyinkaas afarta biloodna runtii si xamaasad leh oo xoog leh ayay dhalinyaradu ay u sameeyeen barnaamijka hatta inta badan majority-gooda hal maalin oo kamid ah hatta ma aysan ka baaqan barnaamijka ma aysan ka baaqan arintaas waxay tusaysaa sida xiisada badan oo barnaamijku uu lahaay iyo sida ardadu ay u qiimeynayeen sida ay u rabeen oo runtii wax aad iyo aad u qiimo badan ah marka dhalinyarada halkan joogta oo runtii dhameysay xirfadaha guusha nolosha ma aha dhalinyaro iska caadiya waxaan dhihi karnaa waa qorayaal waa suugaanyahano waa dad dhameeya xirfadaha guusha nolosha waa qaari'ul qur'aano yani waxaan dhihi karnaa waa dad runtii hibooyinka Ilaahay siiyay wax far badan oo kamida banaanka keena maanta waad u jeedaan xafladan oo dhan iyaga ayaa la wareega laga bilaabo xiriiriyaha ila qaari'ul quraanka ila protokolada ila dhammaan inta joogto oo dhan waa dadkii dhameeyay xirfadaha guusha nolosha si ay u soo bandhigaan waxa ay rabaan dadkana ay ula wadaagaan arintaas waxay tusaysaa inuu cilmi badan oo galay hibooyinkoodina ay banaanka ay u soo qaadeen runtii waxa su'aal weyn ah oo la isweydiinayaa waa maxay fikradda ka dambaysa akaademiyadda hagaag ee hogaaminta iyo horumarinta 2013 markii aan dalka ku soo laabtay ayaa waxaan aad iyo aad u indheeyay wadanka Soomaaliya xaaladiisa dhalinyaradu sidii ku sugan yihiin waxbarashada gaar ahaan waxaan marka aad iyo aad uga murugooda dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed oo kumanaan ah oo waxaan arkay runtii aad iyo aad u murugaysan qaarkood ay tahriibeen badaha ay ku laadeen qaarkood kale darbiyada ay iska fadhiyaan qaar oo niyad jabay dhibaato fara badan ay ku dhacday waxaan aad iyo aad marka aan baaritaan ugu sameeyay maxaa sababaya inay dhalinyaradu ay saas rajabeelkaas ay abuurmaan oo qaarkood ay tahriibaan dhibaatada maaragta keenaysa maxay tahay markaan isku soo duuduubay oo arintaas aan aad iyo aad u baaray waxaan ogaaday sababta ugu muhiimsan oo dhalinyaradu ay u tahriibayaan oo darbiyada ay u fadhiyaan oo rajabeelka ay u yihiin in ay tahay horumarin la'aanta hibooyinka Ilaahay ku manaysta subhanahu wa ta'ala yani qof kasto dhalinyaro ah wuxuu leeyahay hibo ma jiro qof garof ah ma jiro qof kasta Ilaahay wuxuu ku abuuray hibo ayuu ku abuuray laakiin mararka qaar kood dhalinyaradu ma fahamsana isma horumariyaan ma qaataan xirfadaha loogu talagalay inay hibooyinkooda ku horumariyaan ma is oga طبعا dhalinyaradi hadda qaadanaysa xirfadaha guusha nolosha dad badan oo kamida waxay ku soo baxeen inay noqdaan dad ku fiican writing skills iyo qoraalka dad ku fiican fasaaxada dad ku fiican laakiin dhalinyarada kale ee fursadaas aan helin runtii ma dareensana hibooyinkaas waa weyn oo Ilaahay siiyo subhanahu wa ta'ala mana fahamsana sidaas darteeda ayaa akaademiyadda hagaag ee hogaaminta iyo horumarinta loo aasay inay qayb weyn ka qaadato soo saarista jiilal cusub oo runtii awood iyo karti u leh dalkooda iyo dadkooda inay horumariyaan akaademiyadda hagaag waxay hiigsanaysaa in 30 sano ee soo socota ay soo saarto 100,000 oo dhalinyaro ah dhalinyaradaas oo leh xirfado hogaamineed iyo akhlaaq wanaagsan oo aan rajaynayo inay saldhig u noqon doonaan badbaadada bulshada Soomaaliyeed aan rajaynayo insha Allah ta'ala ay u noqon doonaan arintaas marka hadii dad fara badan oo dhalinyaro ah oo wanaagsan runtii ay soo baxaan waxay qayb weyn ka noqon doonaan inay dalka iyo dadka Soomaaliyeed ay badbaadiyaan ay qayb ka noqon doonaan marka ugu dambeyntii waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasto aad joogtaan Ilaahay wuxuu ku hibeeyay hibe ayuu ku siiyay sidaas darteeda hibada Ilaahay ku siiyay ka faa'iideyso waxa tagtaa xarumaha loogu talagalay inay horumariyaan hibooyinka Ilaahay insaanka uu ku hibeeyay adiga waxaa leedahay hibo fara badan ayaa Ilaahay kugu abuuray sida horumari hibadaada si aad hogaamiye u noqoto bedel naftaada si dunida inteeda kale aad u bedesho aad iyo aad u maasantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh